السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن يا مرويين ثاني وقرأت عالم جاي مقالة الجزيرة. dadka halkaysan waxa ay ku xiriireen yihiin garoonkan muddo 4 maalmood ah dadka badankoodu waxa ay ka yimaadeen qurbaha ay ka yimaadeen sida Canada, Mareykan iyo Yurub inteeda kale waxa halkaysan dad kale oo aad oo u bahadileen meeshan oo ay ka dhaceen tigidadii ay hawiyaan ay ka soo gateen ka dhaceen dhibaatada ayaa ka taagan rabsho ayaa ka dhacday galabta meeshan 4 maalmood ay dadkan ku soo noqonayeen garoonka caalamiga ee magaalada Jigjiga waxa loo sheegayaa in waxa weeyaan in cilad ku timaado xagga hawada ay diyaaradihii u maqan yihiin balse waxa isweydiinta waxa weeyaan ma garanayna wax dhacay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن يا مرويين ثاني وقرأت عالم جاي مقالة الجزيرة. dadka halkaysan waxa ay ku xiriireen yihiin garoonkan muddo 4 maalmood ah dadka badankoodu waxa ay ka yimaadeen qurbaha ay ka yimaadeen sida Canada, Mareykan iyo Yurub inteeda kale waxa halkaysan dad kale oo aad oo u bahadileen meeshan oo ay ka dhaceen tigidadii ay hawiyaan ay ka soo gateen ka dhaceen dhibaatada ayaa ka taagan rabsho ayaa ka dhacday galabta meeshan 4 maalmood ay dadkan ku soo noqonayeen garoonka caalamiga ee magaalada Jigjiga waxa loo sheegayaa in waxa weeyaan in cilad ku timaado xagga hawada ay diyaaradihii u maqan yihiin balse waxa isweydiinta waxa weeyaan ma garanayna wax dhacay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن يا مرويين ثاني وقرأت عالم جاي مقالة الجزيرة. dadka halkaysan waxa ay ku xiriireen yihiin garoonkan muddo 4 maalmood ah dadka badankoodu waxa ay ka yimaadeen qurbaha ay ka yimaadeen sida Canada, Mareykan iyo Yurub inteeda kale waxa halkaysan dad kale oo aad oo u bahadileen meeshan oo ay ka dhaceen tigidadii ay hawiyaan ay ka soo gateen ka dhaceen dhibaatada ayaa ka taagan rabsho ayaa ka dhacday galabta meeshan 4 maalmood ay dadkan ku soo noqonayeen garoonka caalamiga ee magaalada Jigjiga waxa loo sheegayaa in waxa weeyaan in cilad ku timaado xagga hawada ay diyaaradihii u maqan yihiin balse waxa isweydiinta waxa weeyaan ma garanayna wax dhacay.